السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ددوينها الصوماليات وعبد محمود قلع يا برنامج كيدين كيمن شري معهد كوالد نمو وحو بدنا كفال لوضا arrimaha qoyska iyo caruurta wuxuu kaloo marar kale ku soo qaadaa waxyaabaha uu arko inay bulshada faa'iido u leedahay ama loo baahan yahay in saxiitaan iyo turxaan bixin laga sameeyo ama xagga siyaasadda ama xagga arrimaha bulshada waxay doonto ha noqoto arrimahaas labtoodu waa muhiim sababtu waxa weeye hadday bulshadu hagaagto ama ma garanaysaa siyaasaddu hagaagto qoyska iyo caruurtuna waa hagaagayaan walaalayaal caawa sidaad ogtihiin waxaynu ku soo qaadaynaa dhibaatada inala soo diristay baryahan oo inaga timid weerarka iyo ma garanaysaa gardaraysiga Ethiopia inooga yimid oo wadankeena halista ku ah ayaynu balcaaw arrinta ku eegaynaa ee sida halka arrimuhu ku gaareen Ethiopia gardaradeedu runtii waa mid fac weyn oo muddo fara badan ummadda Soomaaliyeed ay ku haysay in ka badan dalkeena in badan oo kamidana ay hore u qaadatay intii ka madax banaanaydna weligeed aanay hagardaamo iyo dhibaato iyo hanjabaad iyo ma garanaysaa weerar aanay ka daynin hase ahaatee maanta wixii hore oo dhan wax ka daran iyo damac ka weyn ayay leedahay oo ah inayba toos u qaadato dhulkeennii iyo badaheennii taasna ay u suuro gelisay kala daadsanaanteena iyo sida maaragtay aynu u liidano oo muddo badan aynu u dayacnay dawladnimadeena iyo midnimadeena aynu u dayacnay arrinta haddaba la yaab kale waxa weeye iyo sida arrimuhu halkaa ku gaareen waxaa qayb ka ah dawladda Soomaaliyeed runtii yani dawladda Soomaaliyeed sida ay ula macaamishay Somaliland oo ay ugu suuri gelisay Somaliland inay tilaabooyin caynkaas qaado oo dawladda shisheeye ay xiriir la yeelato ama waxay doonto ay iska samayso arrinta runtii waxa u suuri geliyay dawladda Soomaaliyeed waxayna soo bilaabatay waagi Xasan Sheekh Maxamuud ma garanaysaa teeramkiisii hore ama xilligiisii hore madaxweynenimada ayay soo bilaabantay sida arrimuhu u dhaceen ama shirarkii waqtiyaashaas dhacayay wax badan baa dadweynaha Soomaaliyeed ka qarsoona oo aanay ogeyn laakiin waxyaabaha wax kamid ah ayaa hadda runtii banaanka u soo baxay oo iftiiminaya sida dawladdu ma garanaysaa ay arrintaas ma garanaysaa ilduuf ay maaragtay uga yeelatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu isagu runtii talada qaatay iyo in dadkii la talinayay ay siiyeen macada waxaana ay u badan tahay inay niyad wanaag ka ahayd iyo inay bal dadka isu soo jiidaan oo ma garanaysaa Soomaalinimada iyo midnimada ay doonayaan ay runtii isu soo dhaweyso laakiin runtii arrintii sidaas ka duwan ayay maaragtay wax u dhaceen waaga waqtiyadii Xasan Sheekh Maxamuud xilligiisii hore Somaliland waxa lala galay shirar badan baa lala galay oo la doonayo bal in maaragtay dib loogu soo celiyo midnimada iyo maaragtay Soomaalinimada iyo wadajirka iyo dawladnimada Somaliland sida hadda aanu maqlayno warar la faafinaya ay sheegayaan ama dad xogogaal oo Somaliland ka tirsanaa ay hadda waraysiyo ku bixinayaan waxa weeye inay Somaliland tiri midnimo laga hadli maayo laakiin waxaynu ka hadlaynaa waxyaabo kale oo anaga danu noogu jirto oo ay kamid tahay hawada inaynu wada maamulo diyaaradaha maaragtay wadanka dushiisa maraya Somaliland laga hogaamiyo Muqdishona laga hogaamiyo deeqaha dibadda ka yimaada inaanu helo qaybteeda waxba idinku aydan faragashanin in cidii aanu xiriir la galayno oo ma garanaysaa aanu mashaariic iyo ma garanaysaa arrimo caynkaas kala shaqeynayno aanu anagu u madax banaanaano waxyaabahaas oo dhan dawladda madaxweyne Xasan Sheekh waa u ogolaatay iyadoo malaha uga dan lahayd inay ku soo jiido oo ma garanaysaa ay arrimaha ku furfurto ku furdaamiso laakiin taasi runtii waxaan u arkaanagu inay ilduuf ahay dawladdu ay gashay sababtu waxa way dadkan waxay yiraahdeen midnimada iyo arrinta ugu muhiimsanayd iyo arrimaha masiiriga ka wada hadlimayno laakiin waxyaabo anaga danaha iyaga noo fulinaya oo aanu u dhaqmi karo sida aanu madax banaanahay oo kale dawlad madax banaan oo kale aanu nahay waxyaabahaas noo ogolaada dawladda Soomaaliyeedna waa u ogolaatay kaliya waxa dhimanaa inay tiraahdo waanu ictiraafnay inta un baa dhimanay sababtu waxa way wixii dawlad madax banaan qabato dhan waa loo ogolaaday inay qabsadaan arrintaas waxay keentay Somaliland inay maartay dhiirato oo xataa ay wadankii intii ay iyadu sheeganaysay oo dhan ay isku daydo inay xoog ku qabsato dawladda Soomaaliyeed ay raali uga noqoto oo xataa dadkii midowga rabay ama maaragtay diidana kala go'a xataa dawladdu aanay taageero siin oo ma garanaysaa ay tiraahdo maya Somaliland intiina isku ahaado hal
magaranaysaa mowqif iyo hal mabda halka ha ka yimaado taasina khalad weeye adduunka ma dhacdo markii wadan dad ay doonayaan inay ka go'aan dad waxa jira doonaya midnimada inay qayb ka ahaadaan dadka waa la soo dhaweeyaa dawladdu marka wax kasto ay u qaban karto iyo si kasto ay dad badan uga soo jiidan karto ama uga soo dhaweysan karto dadka gooni goosadka doonaya ayay samaysaa laakiin dawladda Soomaaliyeed ma samayn arrintaas waxay ahayd ilduuf iyo in maaragtay laga gaabiyo runtii wixii ay mudnayd in la sameeyo arrintii marka Soomaaliland markii sida dawladda Soomaaliyeed ay ugu fududeysay waxyaabaha ay rabtay oo dhan iyana waxay ku dhiiratay inay tilaabooyin waaweyn qaado oo ay kamid tahay inay Imaaraadka iyo Ethiopia heshiisyo la saxiixato iyo taasoo hadda keentay markii ugu dambeysay inay Ethiopia tiraahdo kaalay wadankii qabsada oo xeebaha iyaga saldhig ka sameeysta arrintaas waxay noqotay mid runtii aan fariir iyo argagax iyo lama filan waa ku noqotay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba waana hadda qaylada ay cirka isku shareertay sababtu waxa laga maarmaana inaynu garanno in Ethiopia marnaba khayr aanay inoo galaynin iyo in xiriir aynu la yeelana aanu marnaba manfac iyo faa'iido runtii aanu inoo keenayn horeyna looma arag haddana laga fili maayo sababtu waxa weeye Ethiopia intaynu macaamil la lahayn oo dhan ama ay ina la dhaqmaysay oo dhan waxa weeye mid hagardaamo iyo inay iyadu faa'iido inaga qaadato oo magaranaysa advantage inaga qaadato inta ku dhisnaa weeye waa mid kala qaybin iyo inay kala qaybiso dadka Soomaaliyeed inay kooxa u qaybiso inay waxyaabo caynkaas oo ina dhibaataynayo ina wiiqaya umba inta lu kulahayd Ethiopia marka ma aha dadaynu aamini karra ma aha dadaynu wax weyn la wadaagi karrana ma aha haddaba waxa laga maarmaana in maanta arrintu meeshay taagan tahay dadka Soomaaliyeed ay maanta wada gurmadaan oo si midaysan ay wadanka u difaacaan oo dawladda hadda joogto Xasan Sheekh hogaaminaya waxaad moodaa inay tii waagi hore ay dhaanto qoys ay ka noqotay arrimihii hore ay diyaar u tahay wadanka inay difaacdo sidii lagu midayn lahaana ay ka shaqeyso anigu waxaan qabaa arrinta in si weyn loogu taageero dawladda oo maaragtay qof walba Soomaaliya oo inta la iska dhaafo maaragtay khilaafaadka yaryar oo jira in loo istaago waxa weyn oo inaga wada dhaxeeya sidii lagu hanan lahaayo meel ma garanaysa munaasiba runtii loogu sugi lahaayo loo keeni lahaa waxa kale oo laga maarmaana inaan xuso in waayaha shirarkii dhacayay iyo waxyaabihii dhacayay khaladaadka aynu wax ka barano waxaana laga maarmaana in dadkii Soomaaliyeed oo madaxweynaha la shaqeynayay oo runtii xogogaalka ahaa ay ummadda Soomaaliyeed la wadaagaan arrinta ma go'aan madaxweynuhu kaliya qaatay buu ahaa mise dadkii la tilinayay ayaa ku adkaystay in arrintu sidaa u dhacdo taa macnaheedu maaha in hadda fidno iyo is-eedayn la abuuro laakiin waxa weeye inay noqoto wax siyaasadeena aynu wax ka barano oo iskuuladeena laga dhigo oo ma garanaysaa jaamacadeena laga dhigo oo noqoto wax inuu hogaamiyo oo aynu wax ka barano inay noqoto ayaanu la jeedaa walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa maanta meesha aynu taaganahay runtii waxaynu u baahnaa inaynu hore uga dhaqaaqno sida kaliya oo aynu hore ugu dhaqaaqi karaana waxa weeye inaynu midnimo buuxda iyo isu tanaasul iyo inaynu gacmaha isqabsano iyo inaynu wada shaqeyno iyo inaynu is aamino inaynu sameeyno haddii ayna waxyaabaha sameyn oo waxyaabihii 30 sano la soo dhaafay aynu ku jiro oo istuhun iyo magaciisi iyo isdiid iyo isjiid arrintu waa ka sii daraysaa sidaas dhinac kasta dhaqaale siyaasad deganaan bulsho nabadgelyo dhinac walba waa uga sii daraysaa haddaba waxa kaliya oo inoo furan waxa weeye inaynu wada istaagno oo meel ka soo wada jeesano intaasaan caawa ku soo gabagabeynaya waa Cabdi Maxamuud Qalac iyo barnaamijkii idinka iman jiray Machadka Waalidnimo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.